السلام عليكم دمانتي ودي سلام أصحابتي وكما تند تذكر عصبة سكراب كيس ساري والله وقال الجرا إن شاء الله قلب وناكسن إن شاء الله أنا كل تبقى قلب إيدي تهي قفك هين تهي وناكسن قفك مالك تهي مالك وناكسن دمانتي أصحابتي ودي سلامي halkan waxaan uga duceynayna horta dalkeena ilaahay dalkeena nabad waarta ilaahay ha nooga dhigo wadankeena wadan gaara ma jiro laakiin dad Soomaaliyeed afarno isfahmi weysaya oo dadkeena ku ciyaarayso ilaahay waxaan ka baryo horta inay dadku u soo noqdo xamahooda inay wax ku doortaan ay maxay ahayd waxna ku diidaan waxna ku yeelan qofka rabtaan oo doortaan qofka rabna diidaan Soomaaliya ay ku soo celiyay taladooda waxaan halkan uga duceynayna oo kale inta dibban oo gabdho Soomaali ilmo iyo aabayaal Soomaali ilmo reer America ka haystaan ilaahay maxay ilmahooda u soo celiyo maxaa soo haray dadka dibban oo jiraan ee wadankeena joogan Allah caafiyo dhammaantiin khayr iyo caafimaad intii dibban ilaahay dibka ka qabo dulqaad walaalaheen reer Falastiin dibka Allah ka dulqaado insha Allah biidnillaahi kariim waxaan malaynayaa ilaahay intii islaam oo dhan oo dibban inuu dhibka ilaahay ka dulqaado Soomaali ilaahay qulubtooda u sudumo hanu duceyno insha Allah wadankeena oo nabad waarto oo ilaahay noo gargaarana ilaahay hana gaarsiiyo insha Allah biidnillaahi kariim galabteeda ilaahay waxaan ka baryo Soomaali ilaahay qulubtooda inuu u sudumo maxaa yeelay hadda ay shirayaan ilaahay inuu qulubtooda isu dumo oo ilaahay qalbi waaxid ka yeelo ayaan maxay ahayd u duceynayna insha Allah biidnillaahi kariim galabta iyo galab lamida waxaan rajaynaynaa ilaahay uga baryaynaa in ilaahay Soomaali qulubtooda isu dumo oo qalbi waaxid ka yeelo oo ilaahay intii islaam oo dhan oo dhibban dhibka ilaahay ka dulqaado wadankeena iyo nabada aan dib ugu noqono insha Allah ayaan ka rajaynaynaa ilaahay waxaan ka bariyay dhammaantiin dadka iskareebka ii saaran waa mahadsantiin walaalayaal iskareeb dadka aan ii saarin ii saaro dad badan ay fiirsadaan oo iskareeb ii saarin ina iskareebka ii saartiin aan ka codsanahay insha Allah guul iyo gobonimo ay idin rajeynaa insha Allah walaalahay